ninkaas tuug waa adees tuug maanina adiga kaaro hadaan dhiibeedid sharciga kula tiigsanaa xaalad walbaan kula kala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada jananka Kamal Media Group. waa janan cusub haddii ilaahay raali ka noqdo waxaan rabnaa inaan kaga hadalno siyaabihii ka dhexdhacay nidaamiya iyo xasatoob oo ayaantan dacwadooda aad u tiijimaysay. run ahaantii markii uu ka dhawaajiyey xasatoob in uu ka dhiibay cafis uu xalay jananka uu soo geliyey nidaamiyana uu hadda CID-da xaalado kala duwan oo CID-da uu sheeganay in CID-da uu tagay wareysiga asaga ayaan ku wareejin doonaa iyo xafiiskii qaabka uu dhacay iyo siday ku fiican tahay hadda nidaam soo dhow. waa masantahay Abdidoon waxaan salaamayaa dhammaan daawadayaasha quruxda badan ee halkan naga daawanaya. halkan waa Abaal Media Group. saaxiibada waxaan leenahay noogu soo biira. waxaan rabaa inaan ka hadlo tacaddi iyo dhibaato fara badan oo geysanayo qof ka mid ah dadka ay isla shaqeynayaan. Xasan Toob horta waa u mahadcelinayaa markasta wanaag iyo xumaan waxa samaysato ameel ku yaal ma fahanti. waxaan rabaa inaan ka hadlo xalay waxa laga soo wacay saqdi dhaxa mobile isoo dhacay saldhigii howlwadaagan ku balansaneen maantay si loo cadeeyo kama dambeys dadkii dhibaatada u geystay durdur media. waxaa la sheegay in saldhigii howlwadaagna la ka bedelay waxaase jirtay in horena laga soo bedela waa beri laba saldhigaa marayay CID-da yaa liisoo gudbiyey maantay anigoo hadde xorriyadeeda qabaa lii sheegaya inaan halkaas imaan doono. waxaa lii dhahay CID-da imow beri 3 saac subaxnimo. maxkamaduu tagay xasan toob xeerlayaha ayuu kasoo goostay warqad taasoo aniga amar lagu siinayo inaan halkaas imaado si aan uga garbaxo. markasta xasan toob waxaan diyaar u ahay inaan kaa garbaxo si nabadgelyo leh sharaf ay ku jirto wanaag ay ku jirto. ciddii xoolahaaga u dhiibatay haddii adiga haysatid iyo haddii aad dad u dhiibatay iyo haddii dad naga dhex faa'iidaystaba waxaan jecelnahay inaad waxaaga hesho. laakiin maxaa dhacay waxaan rabaa inaa intaas dadka u iftiimiyo. maantay CID-dii 3 saac subaxnimo ayaan galnay. markii aan galnayna waxaa dhacday in 2 saacadood aan taagnaano anigii taliyaashii oo dhan meesha joogay. xasan toob telefoonaa loo diray waa la wacay si kastaa la yeelay uu qaban waayo. anigii waa soo xaadiray waa imaaday waxaan diyaar u ahaa inaan ka garbaxo. wuxuu sheeganayay inaan aniga jabsaday janalkiisa. shalay waan kula shaqayn jiray dhibaato way kugu dhici kartaa qadar ilaahay haddii dhacdo maahan aniga inay qabsato. haddii ay qabsatana waxaan diyaar kuula noqdo inaan kaa garbaxo. waa kaa garbixi rabay diyaaran ku ahaa laakiin waa imaan weyda maanta. sababta isweydiiyey idinka waa dareemi kartiin dad aqli badanaa tihiin. uu imaan waayey ilaa 6 saacadood 6 saac ayaan joognay 3 saac imaanay ilaa 3 saac kala joogaana la dhahay. taliyihii wuxuu amar nagu siiyey inaan meesha joogno. su-aalo badan uu weydiiyey waan sheekaysanay xaaladii uu ogaaday. wuxuu dhahay fasaxaa tahay. waxaase u sheegay inkastoo social mediaha aan uga badnahay in xalay muuqaal uu soo dhigay xasan toob oo ku cafinaya dhammaan dadkii dhibka u geystay durdur media. dad badan haddaa ogtahay maxaa usoo dacweymayda brother keligay maxay dacweysay intaasaa rabaa inaan ku weydiiyo. dad badan aan dacweeyaa dhahday all youtubers iyo dadkii durdur media dhibaatada u geystay waa cafiyey aabahey ka imaatay aa dhahday. dadka dhan aniga gacmahayga lugahayga maa ka wadaa intay jiraan dadkaas keligay dacwada saarnaa anaa kula gardamahay anaa diyaar ku ahaa
xaalad walba si walba ku qanciyay gmail-kaygu ahaa markii shalay la soo wacay la dhaxgalay la ogaanay in durdura ku jabsada la sheegay laga waayo صح marka cadeema marka weysay marqaati aaweysay darbiyada madaxa ku garaacatay ma ay leedahay waa ku cafiyani yaa subax cafiyay inta saraba ina cadee qofka dambiga gala ma cafiyo is qofka dambiga laga galo aniga waa ceebeysay waxa ii sheegtay in janalkaaga aniga jabsaday kadibna dadkoo dhan gaarsiis dadka qaarkood way aamineen qaarna kuma aaminin waayo wajiyada noocaaga iyo qanaan ufaanta wajiga alleedii garanayaan xaaladda ku sugantay garanayaan waxaa rabaa inaan mar kale sheego in wajiyo badan aan leedahay inaad dhahdid nidaamiye aan ka dambeeyay janalkaygi waana cafiyey aniga waa ceebaysay ma i cafina ku dhax mana ku cafinayo mana kaa yeeli doono ma fahanti waxaan diyaar u ahay hadda inaan aniga baxo markii ku soo dacweeyay sumcadeeda dishay dadka gaarsiisay in janalkaaga jabsaday aniga laakiin hadalkaaga ma fahanti waa igu weysay in dhibaato ku geystay ma fahanti waxaan jeclahay sababta xabsiga kugu geenaya inaan ku xiro maaha inaan ku dhibaateeyo ma ahan keliya waxaa waaye inaan xaaladda oo aan la aamusay caafimaad ku dhaane warqadaa geysisiyaa dhiiday marka waxaan rabaa haddii aan ku dacweeyo sababtaa kuu dacweynaya dadka inaa ogatiyo adna ogaatid haddaa idaawanayso sababtaasna waxaa waaye inaad sheegto inaan beri ka ahay youtube-kaas jabitaankiisa aanan ahayn aniga inta xaaladda ay taagan tahay sidaasi ku socon doontaa hadal badan ma sii wadi doono waxaan rajayn doonaa in dadka ay dhexdhexaad noqon doonaan ma ku ceebeynaa ma is ceebeynayno laakiin dadkii aa u sheegtay inaa aniga wax kaa jabsaday haddaad dembi ugu weysid ee cafi kuma dhihin aniga waxaa kaa rabaa inaad dhahdid janalkaas ninkaas tuug waayaa dhehaysid tuug maahan inaad dhahdid adigaa kaa rabaa haddaad dhihi weydid sharcigaa kula tiigsanaa xaalad walbaan kula gelaa cabdidoon soo dhow waa ku dhowahay jananka Amaal Media Group runaantii waxaan maqlayay in xasatoob uu iska ka cafiyey dhammaan adiga xitaa cafiska markii la yiraahdo in alla intii yaa la cafiyaa marka waxa cafiyo dhahay nidaamiye iyo in alla intii qalad iga gashay ayaa waxaan ka fiirsanayay muuqaal soo duubay ayaa xalay ka fiirsanayay runaantina haddana adiga waxaa cadeynaysaa in dacwadaas cafiska uu sheegtay ay ka dambeysay dacwad si oo laga hal marsaan uu istaagto hal marsaan dacwad oo maxay idin muuqdo never give up marka dacwo si ama in never give up waa fahmi kartiin idinka adigana waa fahmi kartaa marka weeyna marnaba intaanti ina balaanka iska taarawa marka wax yar umadana awjigaaga tusmaanti marka in iscad laba hadal adoo ku hadlaa inay umada maqlaan arkaan daawadaan in iscadeeyal raba markii ka nidaamiye CD laga yiri CD waxay ka rabtaa in waxa lagu raay dacwa ka taamo xasan jananka wuxuu ka cadeeyay janankiisa in wax dhan uu cafiyay hadii jiraan qalad ah ka gashay iyo hadii jireen dhamaan intii xataa qalad iga gashay iska cafiyooda marka laba arin isku meel uma dhaxayso waxba cafiyay iyo qofkii meel baa looga yeeray wax ma aqoon ma sameynayso qof alla qofkii arintaas ka shakisana cadeyn buuxda loo heli doonaa oo xilligii uu ka imaaday nidaamyo CD iyo dad goob joog ah oo cidna ay ahayn
ayaa haddii ilaa raali ka noqdo aad la soo xiriiri doontaan sidaas iyo nabadgelyo bye bye